لقادنو إنها آن لقادنو إذكاوبو. بسم الله الرحمن الرحيم. بدون لها جامعة هرقيسة عبدي حسين قاس oo aan ku booqanay xafiiskiisa kadib markii saaka aan helay warar sheegaya inuu iscasilay oo xafiiskiisa ku booqanay doona suurto gashay inaan helo ugu horeyn gudoomiye bal waxaad looga warantaa saaka waxaa jira warar sheegaya inaad iska cajisay gudoominimada jaamacadda Hargeysa oo baryahan dambe aad yara jireen qolooyin aad xafiiska ka eedineen ay buugaraa durayeen markaa wararka iyo inta ay wax ka jiraan bal waxaan doonayaa naga waranto. بسم الله الرحمن الرحيم. تابعوا بانسان هاي إن فرصة وكلام نسيسه ومر كوكورس إنه كتشوابي سؤال شهادة وحلالي واحد كتير أنت عملتشلو في تشيس يقول نقطة ساعة كمان شغالة بدني لا صاحب لي صلاة هوري ويتين عبد مية تسعين كرسين حاجة كتير ما نام تسعين كرين وان شو قاعد شغالي هو شغالة من معها شغال عيارتها عن صغير تسعين كرين يو because أبتي قفكي استدامة تدركي سوف قبر العيد سلو ليريدو because طب دون إننا كقرب كلام هو مركز جامعات I always sort again then what problem واحد شرب من كيلو ريتشرب بلحة أو من آب وقيمة له أو أقول له أو تمام هذا كسر طاقة كان عليه واحد شتى مراحتي كله كهربائية لكن إن شاء الله تيجي لهنا وهالكذا لكن واحد السجنيشن عم بحين ميشرو عم بحين دونا نميشرو سواء كواركو حدود دتكو أنا نلا أركين شقالها ماشي شو هتاني نلا أركين دبردسكا دارك يهرو مركز دارك وجامعة هرمون كتاعي تحاسو كله إنه أقرأ كسرني شغلنا بروسس باجرة هتي وقف واحد السنة بروسس كين واحد مرة يعني لمرة داركنا هرمون رغم سنين كرو هديان ضاعت جاهن waayahay doctor gaas waxaan jecel lahay inaan ka weydiino muddo dhexe waxa jiray qolooyin kamid ah shaqaalaha jaamacadda oo ka tirsanaa fakale kala duwan kuwaas oo soo dhaxgalay khilaaf kadib khilaafkii uu sababay in ay gaadho heer shaqada laga fadhiisiyo arrintaasina baryahan dambe buuq badan abuurtay arrintaa bal warbixin laga sii sidee u dhacday iyo halka ay marayso imika waxa weeyaan horta dadku dee xog buu yahay inuu hadduu wax tirsanaya sheegto maamulkuna shaquu leeyo xog buu yahay in wixii aan shaqaysanayn ama dadkii aan shaqaysanayn mar loo digay laba loo digay saddex loo digay 2 sano loo dig oo boorkuna ogaa in dadka caynkaasa jaamacadda laga kaxeeyaa waa mid laga maarmaan mar hore ayay dhici lahayd in dadkaas shaqada laga heliyo laakiin markay timid in boorku eriyo arrin ergiyo waxbaa timid baan u malaynayaa waxaa la yidhi bal 10 cisho ha la siiyo oo ninkaa specifically shaqaalaha ha la siiyo fursad bal dee lala hadlo 10 cisho dhexdood وإنك 4 بلاد عم بشبرت كسر ذيكتي أيا نكا يقدر كلام مدي وسوا وجين هذا معه إن عبد كاس حذاي تضبيط تضبط تكون أو طالب جامعتك هذا هذا عشوا أيا بور كله فدي وحليلي أنا كسوع عطينا إنه نكاسو لنصري تضبيط تضبط تكون أو طالب sida ogtihiin waa arrin cajiib weeyaan maraykan nin license kula baan ahay certified public accountant baan ahay nin MBA haystaan ahay nin doctorate aan ahay waxaan u inaan dalkan aan wax u qabto eedama caynkaasna wixii dadkii hore lagu sarin jiray shaqada laga heli jiray because dadka qaarkood ma doonayaan in wax wanaagsan loo qabto jaamacadda ama dalka sideedaba marka waxaan oran ka codsaday boorka in la baaro oo weliba ay baaraan qof license leh أما كبني لازم مثله إنجليز أو أمريكا أو يوروب وعلى هذا حسب البول أو بور كتر سنة يا نوهلي محوها كمبني يا فكرود بنباري
dee riboorkii wuu yaalaa meel kastana wuu yaalaa wax allaali waxna lagu falo amba dadka maamulka amba aniga ma jiraan inaan wax lacaga luusanin taasuna waxay ahayd arrin foolxun marka wax weeyaan dee dadkii waxaa keenay in discipline la mariyo waa xaq disciplinekiina waa la mariyo boardkiina policygi iyo procedurega way mariyeen abiil baa la qaatay abiilka waxaa loo qaatay higher education weli wax qoraala ma hayo laakiin dee higher education wuxuu eegaya un sharciga mamnuucaynka inay halkaa gaadhana ma ahayn laakiin ha gaadho waa somaliland no problem ilaa in madaxtooyada la gaarsiiyana waa yar guuldaro weeyaan waayo qofkii shaqada laga eriyaaba maanta in mashaqaysta ahaa ee dhibaatada u keenaya dalka haddii waxaasoo process la maro qabiil la soo geliyo dalkani horuma mari maayo dad baa waxay yidhahdeen cabdow 2 sano iyo waxbaad joogtay halkan 5 Maraykan baad joogtay bal ka war anigu 4 qodob ayuun baan u malaynaya oo thesis u noqon kara amba team u noqon karo waxay haddaan ka fakerayno wax qoro waxa weeyaan wadannimadaaan anigu saan ku arkay dalka ku yar oo nin kasta meelkoodu ka maqan yahay dad kale oo aan gelin dalka u dhigano wayna ugu badanayaan talabaad wax qabiil la yidhaha qabiil ayaa wax kasta lagu eegaya waata saddexaad waxa weeyaan self interest qofka wuxuu leeyahay war maxaa aniga idana taasna dal laguma dhisi karo ta afraad waa diversity in faith hadda diintiba ayaa interpretationkeedii markaan isku haysanaa marka wuxuu u baahan yahay dal healing process buu u baahan yahay waa inaynu ka fikirnaa adduunyadan aanu u hanqaltaagaynaa iyo dalkan ciidamada inakaa dalkan leh dalkan waa qani uu naga badaya khayraadkiisu inaynu dib iskugu soo noqono in behaviorkeenu wadan in la bedelaa loo baahan yahay in dalka la jeclaadaa loo baahan yahay waayo dadka dabadda joogo dhan iyo dadka iminka day dhegeysanaya way garan karaan dhibaatada dabaddu leedahay maaha meelaad u dhalatay halkanaad u dhalatay halkanaad dalkaagiiyo halkan waa inaad ilaashataa wax kastana way yaalan halkan haddii aad si caadiya oo toosoo aragto intaasaa kala bixinaa waay gudoomiye gaas sida aynu ognahay ama dadweynaha reer somaliland og yihiin jaamacaddan hargeysa muddo kooban baad joogtay kadib markii imtixaan la qaaday aada kusoo baxday inaad noqoto gudoomiyaha jaamacadda hargeysa muddadii aad joogtay bal ma ka warbixin kartaa heerkii aad jaamacadda hargeysa ugu timid caqabadihii kaa hor yimid waxyaabaha kuu qabsoomay iyo halka iminka ay marayso iyo barta aad higsanayso haddii naftu kugu sinto inaad gaarsiiso jaamacadda hargeysa horta aad baad su-aasha ugu mahadsan tahay haddii website-ka jaamacadda hargeysa aad gasho waxaa jirta report aanu ka bixino jaamacadda oo 3 biloodba la update gareeyo marka anigu halkan imid lay keenay waxaa laygu keenay qabiil layguma keenin guddiga madaxweynuhu magacaabay ayaa iga soo xushay dad kale saasaan ku imid oo processkaasaan ku imid marka waxa uu nin de backgroundka na waan leeyahay waxay war maxaa meesha ka sii waasidee marka waxaan ogaaday dadkii ugu horreeyeen ogaadeen oo anigu maahay waxa weeyaan inaanay jirin markaa maamul lacageed oo wanaagsan inaanay jirin maamul muxuu ahaa shaqaale inaanay jirin maamul akademiya xagga tacliinta amba waxyaalaha kale infrastructure iyo waxyaalaha intaas sidaad og tahayba ambaba aad riboordadeedu sheegayaanba shaqaalaha jaamacadda u shaqeeya 3 bilood 2 bilood ayay mushaarkooda sugi jireen sababtu waxay maamul la-aan xagga lacagta jireen waxaa jiri jirtay ardayda tuitionka 3 arday ayaa arday keliya bixi jiro scan ayaa kooda lagu samayn jiray marka waxay 3 ardayda arday wixiisii ku bixin jirtay haddii goor jaamacadduna deficit bay ku jiri jirtay oo dhibaata haysatay marka anagu markaa nimid waxaanu eegnay shaqaalihii aan meesha ku habboonayn oanu ka saarnay ayn hawshooda qabsanayn imtixaanaanu samaynin dad baa ku soo baxay markaa waxaad odhan kartaa oo seed shaqaalaha u qortaa inaad og tahay mooyaane qofka alaale qofkii waanu advertise-gaynaa shaqooyinka imtixaanay galaan guddi baa saxda koog baa lagu saxaa interview baa laga qaadaa qofkii ugu badan ayuunbaa un shaqada yimaada waxaa ka mid ah dee laysku jira HR xafiiska shaqaalahaanu leno markii ugu horreysay oon hore u jirin baa imika jira marka halkaas awarka laga heli taana waxaan u samaynaynaa in si cadaalada aanu shaqaalaha u qorano taas waa mid ta labaad
dee inaad ogta mooyaane iminka jaamacaddu waa markii ugu horreysay taariikhdeeda ee shaqaalaha ay lacagta u kordhiso. iminka lacag ku dhow 100,000 baan ugu kordhinay, waa markii ugu horreysay ee anagu budgetkayga aanu ka keenay inaan ku darno lacag ku dhow 50,000 oo aanu ku darsanay dhismayaasha jaamacadda. waayo ardaydii baa soo koray, numberkoodii baa soo koraya, waxay doonayaan spaces lagu baray doonayaan. taas waanu maalinkan maanta waxbaanu ka qabanay. ilaa 10 class baa iminka noogu soo kordhay, waana loo baahan yahay goor inay soo kordhaan. xagga akademiyada faculty kaleba waxaa haysan jiray badankeeda dean kasta isagaa meeshiisa haystay, cid doonayna qoranayay iska dee caadi be waxaan jirin maamul dhexo oo hagaabaan jirin. marka waxaan iminka kusoo kordhinay nin kasta oo maanta shaqada loo qorayo faculty inuu soo maro academia baanu leenahay, in uu dhinku ka mid noqdo xulashada, in HR-ka lasoo maro, inuu masters degree tiko qofkaas inta ugu badan. taasna waxay noo suurto gelinaysaa in aanu aqoonta macalimiinteeda kordhino. waxyaalaha aanu samayno waxaa ka mid a, waxaan u malaynaya haddaan qaldanayn inay jaamacadda Hargeysa jaamacadda keliya iminka World University ay lisgaraysay way aqoonsan tahay. jaamacado badan baanu jaamacadda kusoo xidhnay, amba ha noqoto Addis Ababa University, amba ha noqoto Bahradar University, amba ha noqoto South Africa, amba ha noqoto jaamacado Sweden ku yaala, Norway ku yaala, Ingiriiska ku yaala, Australia ku yaala, Maraykan ku yaala, iyo Afrikada amba Nairobi amba Kenyatta meelo badan ku yaala. intaaba xiriir baanu leenahay. okay, haddii aan kaa dhexdoo guddoomiyey jaamacadaha badan ee aad xiriirka la yeelanaysaan aad kusoo xidhantaa jaamacadda Hargeysa, qaybaheeda wax ka tari karaan? ma qaybta librariyada kale waxay ka tari karaan? ma qaybta waxaan ku wari qalabadan kale ee laabka iyo waxa marka la leeyahay jaamacad lagu xidhay maxay ka tartaa jaamacadda lagu xidhay? horta aad baad ugu mahadsantay. iminka waxaa jiri jiray engineering oo kale, waxaan u baahanay in manhajkayga la eego inuu standardkii adduunyada gaarsiin karo. waxaan tegay Bahradar University, si fiican bay dadkaasi soo dhaweeyeen, madaxweynahoodii baan arkay, cid buu noo soo diray, waxay qiimeeyeen manhajkeygii. 5 years weeyaan programkaanu leenahay. 5 years ka dhaadhowto badcad ugu horreysay baa graduate garowday 27, almost all shaqooyin baa la siinay. anigu ma nihiin business akunu ma joogna lacag samayno, arday tayada baan soo saarnay. taas waa mid soo taas xagga engineering naga caawisa. haddaad eegto for example King's College oo Ingiriiska ku taala, Australia Perth oo ku taala university ku taala Australia, kuwaasuna way yimaadaan xagga dhakhtarada naga caawiyaan, ambaba kalaasyada ardayda ha u dhigaan, amba imtixaanadooda ha maamulaan. anigii camuud aad baan xagga iskaga siman. ta kale jaamacad ku taala Dolana University oo ku taala Sweden ayaa iyadoo live oo toos ah ayay jaamacad ayay noogu dhigaan web based wigii 2 goob ay soo galaan 7 masters degree 7 arday 12 jaamacadda Hargeysa iyo 6 camuuda. maxaa u dhigaan masters degree midwifery umulaad iyo wixii si loo nabadgeliyo caafimaadka hooyada iyo ilmaha oo aqoontii la kordhiya dadka waxaa sameeya. marka masters degree waxyaalo kala badan oo xagga engineeringka iyo xagga businesskana waan filanayna inay dhawaan oo yimaadaan. for example waxaa jirta London School of Hygiene and Tropical Diseases ayaa nagala shaqeynaya inay research halkan ka sameeyaan. waxaa jirta for example jaamacadda Hargeysa right now waxaa la furay dhaadhowto 4 jaamacadood oo research halkan ka sameynaya. Soomaalidu meesha ay joogto dhammaan la yidhi waa dhaqaalaheedu maxay tahay, waa maxay waxyaalaha saameyn kara, factors that affect maxaa saameyn kara. taasna dhaadhowta halkan jaamacadda Hargeysana waxay noqotay research center ka Afrika, Denmark, Addis University jaamacadda ku taala Kenya iyo Hargeysa University ka kaashanay. soo taas xagga research ka naga caawinaysa. ta kale hadii goor lagu dhaliili jiray jaamacadda Hargeysa waa research malady waxaan leenahay iminka masters ugu horeeyay waa la bilaabo. dad badan baa ku jira dowladda iyo hay'adaha oo international relations and diplomacy. taas way jirtaa. 2 kale iminka lagu soo daraya. research centerkii waan samaynay. marka taasna aad baan ugu faraxsanahay. of course diblomayaashii waa la bixiyaa wixii kale mid kaliya Maraykan wuxuu naga caawiyaa for example looga xagga sharciga Connecticut New Haven University or New Haven College in Connecticut
محوها Elizabeth College in Pennsylvania محايد Maryland University وحتى أمريكا كتالون وصل دكتور معلمين ويد نلجوتو إنجليز عاد نوع عاوزة إنجليز نايتها كنوجود بعتبر جامعة السومالان because وحنو بعنا هدينو نري إنجليز ما نحكو برنا أنت يا معلمين يا تبع الحوتشي way gudoomiye waxaa sheegtay in lagu eedeeyay musuqmaasuq inaad ku samaysay hantida jaamacadda isla markaana lacag $7,000 la baxday kadibna order lagu geliyay orderkaas reportkii uu soo saaray ma soo bandhigeen oo ma ku soo celiyeen cidii dhacday mid kale ma la publish kariyay mise wali laba publish karay hadda sadogta hayda waa la hor keenay dadkii eedaynta waa loo hor keenay boorkana soo hordhigay wasaaradda tacliinta Kuubiga haysta boorka dhan Kuubiga shaqaalaha waa loo qaybiyay sadogta hayda marka audit la baaro nuxurkiisu waa opinion si kasta oo baad nuxurkiisu waa opinion marka auditku wax kasta ay nagu jireen wax kasta xitaa waxa la yidhi alaabta suuqa ku iibiyay baa la yidhi alaabta xabad loo tiriyo ka laga oo purchasing agent ugu tiriyo marka uu jira reportkii waa public record كوبي هتا دول السنة والحسينية electronically otherwise كما كمركو إن فينا نمارو كوبي حسينية. أوكي ويا قدومية مدة لبعض السنة جوتي وات شيء وحقبتك يو هيركي أتكسوقاتين إنك ما دام تي قدومية جامعة هرقيسة ما حد أسود شيء لسه الطيدة دقطة يو قرض معلمين تا يو بالشدة رئيس ملان جامعة هرقيسين وحنقط. سألتهم بقى جامعة هرقيسو وجامعة قرنك وجامعة وين وجامعة عنو بس اللي عن قبائل وقتها فونتاي سيدا وجيت مسؤولية بالمكسران ديبوديسكا دلكا يهرمرتيس وحن دون إن أعطينا جامعة كوتشرتا يكون كبحيمة إن هرمود كنقدان شقة بورست وهي الدولة ما لها ريسورس بدون حق العقدة بقول يو كنت تكون إلى بقول مليون عياشرة أنت حسنا ونبت كلية ده يو معمول كويه العقد بدل مركا ما هريسو وحوين لو قطعوا هتيانا هاين طلع قصد سيدا وجد فرصة وين باوت على دنيرو هنا انتربرنور شقابو ريو السنة إكسام بامسينا جامعة هرقيسنا waxay u tagtay ciidamada waxay tiri dhulka tago jaaro ku yaala hana la siiyo hana loo ogolaaday inaan isticmaalo ardaydu A wax ku barato sida wax loo beero B wax ka soo saarto aad waxaan ugu faraxsanay mashruuca tago jaaro mashruuc weyn oo 500 mitir la siiyay oo shalay ugu dambeeyay aan ka imid in ka baxday digirtii fuulkii wixii oo dhan imika waxay ka soo baxay insha Allah dhakhtarada iyo agoomaha jecel in la wadaagno imika waxaan ugu soo beeraya timacada jaamacada timacada iyo camuud oo leenahay waa danta guud ee dalka laga fikiro food security laga fikiro taasna waan ka shaqeynayna kalluunka xagga kalluunka inaan wax ka qabano مثلا سيرو تبع جامعة هرقيسة dhagax baa loo dhigay ceel sheekh waay ceel sheekh waxa weeyaan waxaan doonaynaa mariin meel lagu barto waxa badda khayraad inoogu jiro oo aanu kala shaqeyno berbera oo aanu kala shaqeyno camuud oo aanu kala shaqeyno jabuuti oo inuu aragna xeebta weyn ilaahay na siiyey sidee wax looga qabsan karaa dalkana khayraadkeeda loogu soo saaraa horumarkiisa marka waxaan odhan lahaa dadkay dhegeysanaya maanta jaamacaddan cid uga maqna idinku baa u maqan inakum baa u maqan haynu iskugu tagno haynu hore u marino haynu also intaasoo graduate waxaa soo graduate garana 719 iminka bish 9 shaqo ma hayaan waxaan doonaynaa entrepreneurship inaan samayno shaqaalo soo iminka halka waxaan nagala shaqeeyaa inamo ka shaqeeya xoolo iibsadeen 200 sabeenood bay iibsadeen waa 800 bay maanta maraysa waa lacag badan weeyaan waa very simple kalluunkiiba halkan buuxo oo aanaynu maalinka maanta aanaynu soo guranayno large commercial scale lacagtaa la isku geynaa waxaad u baahantay 2 gaari oo qaboojiyaal oo midna la dhiga xeebta midna wax lagu soo guro meelo badan baa xidhay because supply kalluunka ayaa la leeyahay xoolihii baa jira oo beerihii baa jira an example kaasi jaamacadda timacadda waxaan nidhi xidhiid baa loo wadayna waxaan nidhi dhul weyn hala keeno ay labada jaamacadood leeyihiin dabeeta ha loo bandhigo dadka Somaliland ee lacagta haysta oo hal la yiraahdo lacagtii loo baahnaa in wax weyn lagu soo saaray galiyeeyo waayo marka harvest wax la soo saaray ilaa inta suuqa la geeyo transportation storage waa loo baahan yahay badan marka haddii Somaliland dadka lacagta ay garan waayaan inay wax ku darsadaan
waxaan leenahay dee carab baa taagan oo doonaysa in lacagta inay gashato marka anaga jaamacadaga xoogaa waanu heli laakiin dad kale ayaa cuntadooda iyo food security la soo saari inakuna bariiska baastada haddii laynaga joojiyo waanu baktiin marka waxaa loo baahan yahay in dadka dabadda joogay dhegeysan ee ku halkan joogana in dalkani dehan yahay lacag laga samayn karo wax kasta laga samayn karo marka waxaan jeclay in lagu soo biiro oo dalka horumarkiisa nagala la shaqeeyo oo loo kala harin okay wad ma tadda tukar بسم الله الرحمن الرحيم حسابيها جودة جامعة هرقيسة محمد علي عقال بالمحمد وقرين واحد واربعين كوابان نقاسي ساعة حلقي جامعة هرقيسة كشغل شيء iyo muddada labada sano ee aad joogtay heerkaad ugu timid caqabadihii ka hor yimid iyo maanta barta ay idin marayaan hawlaha jaamacadda bismillaahi raxmaani raxiim waad mahadsantahay booqashadaad nagu timi wargeyska ama website-ka global media wareysaa sheegtay magacayga waa maxamed cali cigaal xisaabiyaha guud jaamacadda hargeysa waxaan shaqada bilaabay 2012 bishii December markaasoo aan imtixaan la qaaday ka qayb galay si koobiyeysana guuleystaan isagoo doctor gaasna iga soo horreeyay dhowr bilood markaa uu yimi shaqada isaguna isagoo laftigiisu imtixaan ka yimi jaamacadda hargeysa waa jaamacaddii aan ka baxay horta marka hore 2007 alxamdulillah ku faraxsanayn mar labaadna ka noqdo wixii ay bartay ugu shaqeeyo marka labaad jaamacadda hargeysa markii aan kusoo biiray dhaqaalahaan aad bay u lidatay waxay maraysay meelkii ugu xumayd ee abid jaamacadda hargeysa ay maraysay waxay maraysay meel ay mushaharkii lagu leeyahay waad mahadsantihiin global media booqashada nagu timaadeen maanta jaamacadda hargeysa waxaan aanu jaamacadda xisaabiyaha guud ee jaamacadda hargeysa maxamed cali cigaal jaamacadda hargeysa waxaan kusoo biiray 2012 akhirkeedii December markaasoo ka qayb galay imtixaan loo qaadayay xisaabiyaha guud jaamacadda hargeysa kaasoo nasiibkiisa ka qayb galo kuna guuleystay oo aan kuna soo biiray xubintii cusbaa ee la shaqeynayay doctor gaas isla markaa imtixaan ku yimi jaamacadda hargeysa oo meeshii aan ka baxay marka hore waana ku faraxsanayn inaan ku shaqeeyo dib waxay bartay anaa kuna contribute garayo wixii ay soo bartay intaa kadib marka la eego dhinaca maaliyadda aan anugu mas-uul uga ahay jaamacadda hargeysa xagga xisaabaadka waxaan ugu nimid jaamacadda hargeysa financial crisis iyadoo ku jirta ama dhibaato dhaqaale iyadoo haysato oo lagu leeyahay deyn badan oo $100,000 ka badan lagu leeyahay mushaharooyinkii sanadkii hore shaqaalo qaar bar lagu leeyahay iska bixin kala kharashaadkeedii kale iska bixin kala laba nimid sidaa awadeed waxaan ku guuleysanay inaanu jaamacadda dhaqaalaheedii dib u soo celino oo aan dib u soo kabno annagoon wax kala helin oo fiigii ardayda yar laga qaadayo oo dib u soo hagaajinay sida annagoo hagaajinay collectionkii si ama looga ururin lahaa jaamacadda ardayda oo gebigiisuba lunsanaa in ardaydu lacag bixiyaanba dhaqankaas oo lumayba aan dib ardayda u barnayn dhaqankaaba inay lacagtii wixii yaraa meesha lagu wadayay dib u bixiyaan maadaama cid kale waxba siinin sidaa awadeed waxaanu ku guuleysanay ilaahayna mahadda goobaadda ilaahay leeyahay in ilaahay nala garab galay daacadnimadii iyo aan ku shaqaynay waxaanu ku guuleysanay markaa inaanu samaynay system lacag urumeed oo fiican iyo mid kharash bixineed oo wanaagsan bay labadaba oo si cad ah waxaanu ku guuleysanay inaanu wada bixino deyntii 6 bilood ugu horeeyayba 100,000 lacag ku dhow oo deyn lagu lahaa waxaan ku guuleysanay inaanu dhisno markii ugu horeysay ama ka qayb galno dhismayaal jaamacadda aan soo kordhino ee naga caawisay wasaaradda waxbarashadu waana markii ugu horeysay ee jaamacadda hargeysa ay qolna ilaahay ka dhigay ay wax ku darsato dhismay dhisanayso taariikhda intii jirtay waxaan ku guuleysanay imika inaanu sameeyno maxaa la yiraahdaa ID card number ardayda laf ah u sameeynay oo arday kasta la siiyo oo lagu dhajiyo ardaygii lacagta bixiya stam yar oo ku keeno Dubai uga soo iibino
si aanu ardayga looga dhex gelin ardayda kale. waxaan ku guuleysanay iminka inaan wadno system management information system oo jaamacadda oo dhan ilaa bilow ilaa dhammaad ardayga iyo shaqada kale jaamacadda waa lagu kaydinayo. waan ku bixinay lacag oo markii ugu horeysay oo lagu sameeyay jaamacadda Hargeysa gudaheeda waliba ardayda fakalka ICT ku sameeyo. waxaan ku guuleysanay inaan sameynay usoo iibinay jaamacadda hoolkeeda dib u dhis ku sameyno meeshii graduation lagu qabanayay ama qalinjibinta halka ka dhacdo dib la kordhiyay. waxaasoo dhan anaga bixinaynay inaanu meelihii la marayay ama landscaping waxa la yiraahdo inaanu iyadana dib ag u bixinay, inaanu sameynay istoodo, inaanu ciidanka meel u sameynay. waxa kaloo jira inaanu waxaan wali iyadana inaan wadada ceerigaabo laftigeeda maanta qalinjibinta aan ku darsan doono contribution halkii jaamacadda Hargeysa wax lagu contribute jiray iyada wax ku darsato ay maraysaa. waxaanu kaloo sameynay qodobka koobaad ee inaan ugu horeysayba waxaanu kordhinay mushaharkii shaqaalaha jaamacadda Hargeysa. waa markii ugu horeysay waxaanu nimiyadoo la leeyahay maamulkii naga horeeyay leeyahay shaqaalaha lacagta dhima soo bixin karayna. alxamdulillah wadin 2 sanadood alxamdu ku guuleysanay. sanadkan waxaanu kordhinay waliba August baanu mushaharkii kordhinay. waa bilihii lacagta jaamacadda ay geli jirtay ama lacag xumada ay ku dhici jirtay dhaqaale xumada jaamacadda ku dhici jirtay ayaan isla bishii laftigeedii baanu kordhinay. waanu kala garan qof kasta oo dhaqaale garanaya wuu garan karaa bisha casaanka gashaadii wax la kordhiyo sida gaabku jiray inta lagu garan karaa qof kasta. August marka la soo gaaro July iyo August iyo September jaamacadda Hargeysa mushahar shaqaalaha ama half la siin jiray ama total lagu yeelan jiray sidaan ugu nimaanaba. alxamdulillah waxaan ku guuleysanay inaan mushaharkii kordhinay iminka wasaasuna ku dhaqan galay aanu ku fulinayna. waxaan kaloo sameynay jaamacadda sumcadeedii oo aan soo celinay maadaama dhaqaale xumo ku jirtay. waxaan nimiyada oo aan cidibo waxba siinayn oo aan cid ku soo iibsan karaynin oo meel walba la leeyahay wax ku siimayno. iminka alxamdulillah wax kastaaba waa sidii lagu talagalay waxayna ku socotaa si wanaagsan. sumcadeedii jaamacadda iyo dhaqaalahan iyo mid kasta arkay maraysa waana la arki karaa waana wax muuqdo weeyaan. waxaanu kaloo sameynay inaanu sameynay اللهم صل على محمد maxaa la yiraahdaa waxaan sameynoo kale maxaa la yiraahdaa ii sheeg engineering lab inaan keenay arday engineering inaan lab ka keenay iminka alxamdulillah iyadoo aan ku faraxsanahay. inahana waa inaan soo yar koobay waxqabadka jaamacadda xagga maaliyad ahaan aad bay u badan tahay. وانا اركي دونتان دسمياشي waxaan soo galay. okay waayay xisaabiye maxamed hadii in yaraan ka weydiiyo waxaad ka dhawaashay in xilligii aad timaadeen jaamacaddu ay diin ku jirtay. diinta xilligaa jaamacaddu ku jirtay ma system xumo xagga xisaabaadka bay ka timid ma ardayda lacagta bixin lahayd ma cid kale lacag ku tasarrufaysay ma keera inta ma yaraca ka sii kala cadeyn kartaa. runtii waxay ku timi un ahaan ardayda lacag uruntuna aad u hooseysay kharashaadkuna badnaa. labadii in baan habeynaa wax kale ma dhaansanay. lacag uruntuna waana wanaajinay oo si sax ah qof kasta inuu iska bixi oo eedaab ku jirto aan qof kasta uu aqal cilmi lacag iska bixiyo iyo kharashaadkii badnaa ee wixii aan loo baahnayn oo dhan aanu jarnay. sida dad mushahar la iska siin jiray dadaan jaamacadda u joogin oo mushahar la siin jiray biilal aan jaamacadda u baahnayn oo la bixin jiray waxaasoo dhan baan dib u eegnay wixii oo dhan baan dib u nidaamnay. okay imika xageemay hawshiinu maraysaa baad oran kartaa heerka ay marayso xaaladiina dhaqaale iyo waxa aad higsanaysaan mustaqbalka dhow bal warbixinayadaasi. sidaan kuu sheegay xaaladda wax laga garanayaa dhaqaalahan bilahan ku jirnay August iyo September bilihii lacagta mushaharka laga amahan jiray shaqaalaha aan xul siin jirin bilaha laftigooda baan u kordhinay. halka waxa ku soo dhaqaalaha halku marayo. talabaad higsiga waxa weeyaan jaamacaddan ku soo kordhino dhismayaal waayo xagga dhismaha ayaa jaamacadda caqabad ka haysataa. wasaaradda waxbarashada naga caawisay ku mahadsantahay imika laba dhisme imika taasaan ku rajayna wixii dambe inaan dhismayaal si ardayda meel ku bartaan oo helaan fara badan iyo inaan macallimiinta laftigoodii kor u qaadno tayadoodii iyo xaggii dhaqaalahoodiiba. تكلينا القلب أملا بدن فكر كستلا عن أوكنا فكر كست إن شاء الله. أوكي وقدامين ندان كويديو حسابي محمد محاد
u soo jeedinaysaa hadday tahay ardayda iyo hadday tahay macallimiinta iyo hadday tahay dadka jaamacadda hargeysadan ayaba maxaad kula dardaamaysaa maxaad soo jeedinaysaa waxaan kula dardaarmi lahaa jaamacaddan waxay u baahan tahay in si wadaniyeed ku jirto lagu shaqeeyo si wadaniyeed ku jirto in ardaygu u dhigto oo ardaygu fiiga yare laga qaado jaamacadda hargeysa waxa weeyaan jaamacadda ugu jaban fiiga waddanka oo dhan ta labaad waa jaamacadda ugu qaalisan mushaharkaysiisa macallimiinta haddana dhinaca kale marka laga waxaad arkaysaa marka laba extreme ama laba dhinacay kala taaganta tii ugu jabnay inay noqoto fiiga yare ay qaado iyo tii ugu qaalisan inay noqoto mushaharkay bixiso taa marka waxaa loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo oo ardaygu waxa yare laga qaado iska bixiyo tan kale dadka shaqaalahana waxaa fiican inay isku duubnaadaan oo jaamacaddoodii oo jaamacadda qaranka ugu weynaada tahay inay ilaashadaan iska saaraan waxyaabaha kale ee xumaanta inay wanaajiyaan iyaguba meesha bay ka mid yihiin inay hagaajiyaan yani sharaftooda iyo la yidhaahdo jaamacaddii qofkaasi ka yimid ama ku shaqeeyaa inuu sharaf ku yeesho laakiin maaha inuu magacxumo soo jeedo jaamacaddiisa iyo waddankiisa. والسلام عليكم واي محمد هذا ما صنف وأمنان إيو أباري وأمنان إيو أباري ومسيو يا لاني ومسيو يا لاني وقادا قدسي يدا وقادا ولا ليال وقادا دكسي يدا وقادا ولا ليال وقادا indhahaan ku kala qaadno indhahaan ku kala qaadno ifka ugu ilbaxsanaane ifka ugu ilbaxsanaane ogaada dugsiyada